raimundo wuxuu ahaa 77 jir ku nool jidadka iyo darbiyada magaalada São Paulo ee dalka Brazil kadib markii uu ku guuldareystay gurigooda gabadhna uga noqday qabowga iyo kuleelka daran ee dhacaya. wuxuu qori jiray gabayo sheekooyinka gaaban dadka jidka maraya ayuuna u qaybin jiray isagoo wax lacag aan ka qaadin, waxayna ahayd waxa kaliya farxad gelin kara kadib markii ay murugada isku gadaantay noloshiisana isku wada eeg. haddaba maalin maalmaha ka mid ah waxaa jidkaas soo maray gabar lagu magacaabo Shaala oo leh dareen bini'aadanimo, wuxuuna siiyey tix iyo sheeko gaaban oo taabanaysa dadka ku dhaqan deegaankaas, kuwaas oo aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen sida cuntadii, hoygii, caafimaadkii, waxbarashadii, sidoo kale iyo biyo nadiif ah. qoraalkii aad ayuu la dhacday Shaala oo ahayd gabadh jecel fanka, qoraalka iyo suugaanta. waxay garab fadhiisatay raimundo waqti badanna la qaadatay si ay uga ogaato noloshiisa wax badan iyo aragtida dhibanahan barola'aanta iyo baahida jirkiisa dileen. ugu dambeyn Shaala waxay go'aansatay inay caawiso raimundo kana saarto noloshan adag ee uu ku jiro. kadib waxay bilowday inuu sheekooyinka iyo tixahu qoro ku faafiso baraha internetka, gaar ahaan aaladda Twitter iyo Facebook. Shaala sheekooyinkii way faafisay waxaana u soo jawaabay hay'ado khayri ah iyo bulsho badan oo ka xanuunsatay xaaladda raimundo. dhanka kalena waxa qoraalkiisa farshaxamaysan ee sida tooska u abaray qalbiga qofka. muddo yar kadib odaygii 77 jirka ahaa barayo nololna midna haysan wuxuu helay nolol wanaagsan, guri weyn oo dhammaystiran ayuuna yeeshay. sida sawirka ku aragtaana muuqaalkiisu wuu isbedelay. intaa waxa dheer inuu noqday qoraal rasmi ah kadib markii madcadweyn oo buugta daabacda ay go'aansatay inay daabacdo buugaagtiisa adduunkana u soo bandhigto hal-abuurnimadiisa waayo aragnimo ku dheehan tahay.